ilmaadeer yaalow shan su'aalood baan rabaa beesha tunka weyn ee leelkasi aan ka dhashay inaan weydiiyo isimkooda waxgaradkooda dhaqankooda culimaadudiinkooda ganacsatadooda dhalinyartooda siyaasiyiintooda iyo haweenkoodaba waxaan rabaa inta aan sheegay inay su'aashan iga jaahil bixiyaan maskaxdeeday ka timid inaad iga jaahil bixisaan qofka bini'aadankana fikirku soceen maaha shanta su'aalood waxay kala yihiin xaquuqda Puntland nooga maqan Puntland haday xaquuq nooga maqan tahay waxaynu leenahay isin iyo madax asagu miyuusan nooga dooni karin waxa Puntland nooga maqan midda labaadna waxay tahay federaalka ciidanka gudow ka qoro Istanbul geeyay ma jiro federaal intuu ciidamo beeleed qorto ku hawlgala tusaale xawaale nimankii ogaayeen baa intay la dagaaleen oo iska dhiciyeen oo federaalku xoogaa beena wax u qorqoray baa hadhowna faylkoodii la daadiyey nimankaas dhulbahante Puntlandna waa lagu diray daaroodna waa lagu diray isaaqna waa lagu diray ciidankii loo qorayna oo Xamse Cabdi Barre Xashir Maxamed uu qorayna caawa mid mushaar qaata ma jiro waana inay DDS iyo Puntland iska soo dhiibaan bay u badanta midda saddexaad waxay tahay saraakiisha ciidanka qoraya su'aasha inay weydiinay waxay tahay ciidankii qorateen hubkii leelkasana qaadateen maxaa ka shaqaynaysaan yaasa u shaqaynaysaan su'aasha afaraad waxay tahay Xashan Sheekh Maxamuud mandatekiisi waa dhamaaday World Bankigiina mar dhow baa la xirayaa sababta ciidanka leelkasa iyo hubka leelkase oo u qoranayo u rabo maxay tahay su'aasha shanaad waxay tahay saraakiisha xamar ka timid oo ciidanka Istanbul geysatay oo qoratay iyo ninka kow soo diray oo wasiirka duulimaadka hawada ah kow saraakiishi wax xaquuq ay haystaan ma jirto xaquuq ciidamada leelkasa iyo gaarida leelkasa inta u doodi lahaayeen ayagu xaquuq ma haystaan meel ay darajadooda lagu shaaciyeyna ma jirto ninka soo diray oo wasiirka isku sheegayana taliso xamdi ba aeroboorka subaxna ka cayrisa subaxna soo gelisa gabadha sacadka ay taliya xamdi xaquuqdii ay in ka haysato adinka iyo ninka in soo dirayba Xashir Maxamed xaquuq doona shanta su'aalood iiga soo jawaabay igana soo jaahil bixiya sida ay tahayna iiga soo jawaabay qof aan xaquuq lahayn yuusan anaga gondam naga dhigin waana maasantiin qof kastana fikirkiisu ama